ingiriisku wuu igabay, and I'm saying that loud and clear. Britain haddii ay oran lahayd war dhulkii aan Somaliland aan xukumayay ee aan ku wareejiyay Somaliland khariidadiisu waa taas kaba soo qaada Sweden, the prime minister of Sweden waa nin Jewish ay marka maxaan ku raadin dalka Yurubka aad joogtaan madax badan baa ah asalkoodu yahay Jewish yahay u labi gareeya oo ka soo taageera oo ka make noise. Ingiriisku wuu igabay, and I'm saying that loud and clear. Britain haddii ay oran lahayd war dhulkii aan Somaliland aan xukumayay ee aan ku wareejiyay Somaliland khariidadiisu waa taas waxaanoo muran iyo sheegashadan leeyahay gobol Soomaaliya kamid ah baa tahay ayaa iga hadhi lahayd. Marka lobby Britain, lobby your members of parliament, lobby your people in England, and tell them please teach Somalia what the map of Somaliland is. Where was British Somaliland Protectorate? That was part of the great British Empire. It's not for me to tell Somalia, it's for Britain to tell Somalia who, where, what Somaliland is. Marka Edo, don't shy away. This is your survival. Your survival depends on it. Somebody is telling giving false information about you. It's for you to clarify that. Marka waxaan leeyahay youth-kow halkan ka noolahay waa dhalinyarada dadkii waaweynana way iska xiiqeen ha ka xiiqina hooyo oo weliba si nidaam leh oo diblomaasiyada oon burbur lahayn oon jajabin lahayn wadankiina ugu soo dhiciya aqoonsiga oo halana arko in kuwa wax burburiya wax jajabiya ee wax qaribay yihiin Soomaaliya kuwa wax hagaajiya ee dooda ee mutacalimiinta ah ee wax wanaagsan si wanaagsan waxooda gartooda u naqsada waa Somaliland. Marka the image ka aad bixisaan waa very important. It reflects on us and wadanka joogna. Marka idinkoo diplomatic ah idinkoo cilmiga Ilaahay idin baray ku raadinaya idinkoo la kaashanaya dadka asxaabtiina dalka joogtaan ee sharciga yaqaan ee idinka inooga wada aqoon roon idin sympathetic noo ah la kaashada. Marka halkii aad aragtaanba geedkii aad aragtaan danteenu ku laaban tahayba tay ka soo lula oo ka soo rida oo ka soo dhiciya kaba soo qaada Sweden, the prime minister of Sweden waa nin Jewish ay marka maxaan ku raadin dalka Yurubka aad joogtaan madax badan baa ah asalkoodu yahay Jewish yahay u labi gareeya oo ka soo taageera oo ka make noise. ayuu maxaa raayeen arkiina u leeyahay waa inaad ka noqotaan go'aankiina sidii uu hanjabayo Turkigu nin horo 2013 qoraal ka soo qoro Axmed la yiraahdo wuxuu yiri waanu ka blog garaynay 2013kii tiyo kalena waa in la sameeyo marka maamo saddexda wadan sidee been maxaa dhaay amnigeena gudaha aynu ugu adkeyn karnaa midda kale safaaradan Turkiga ee Hargeysa inoo joogtaa miyeenan oran karin waxay basaas u tahay Turkigii inaga bloggareeyay aqoonsiga 2013kii 12 sano ka hor waan ka baxay maamo aad baan ku salaamay aad baan maasan bay soo dhawow maamo laba question baa lagu weydiiyay adna waxaan ku weydiiyay Taiwan sameynaa faa'iideysan Taiwan heshiis ahaatimay naga dhaxeeya horta inagu waxaynu nahay neutral baynu nahay China-na way joogtaa business yar bay ku leeyihiin horena way u joogtay markii berigii Taiwan ay United Nations-ka iyadu member state ay ahayd China-na ay dibadda ka ahayd Somaliland Maxamed Ibrahim Cigaal Allah yarxamo wuxuu ahaa madax prime minister-kii u dooday in Somaliland in China kursiga la siiyo United Nations-ka ay fadhido dadkii u ololeeyay ayay ahayd marka horta wax colaado inaga China naga dhaxeeya ma jiraan China iyo Taiwan 120 dal ayay Taiwan saaxiib la tahay 120 ka dalna China-na way joogtaa Mareykanka China-na representation bay ku leedahay safaarad bay ku leedahay Taiwan-na representation bay ku leedahay intaas oo dal Europe iyo Mareykan China way joogtaa Taiwan way joogtaa marka isma diidaan
businesses badan oo China warshado badan China ah ay Taiwan leedahay markaa horta iyagaa dhinacna ka walaala iyagaa dhinacna ka shuraaka ah ee tartankaa iyo waad naga go'deen iyo waxaas waa wax midisa iyaga u yaala Taiwan intay imkii nala joogtay waa naga lahaa $26 million deyna kuma lihin xaqna kuma lihin wax lala qasab aynu uga rabno ma jirto haddii ay inoo garteen saaxiib inoo gartay inay intaa ina siiyaan oo isbitaal inoo dhisaan haddii ay dal saaxiibi uu gartay su-aasha caddaan siduu u dhigay waxay ahayd Taiwan muddaday jirtay sidii loo baahnaa loogama faa'iidaysan marka tala ahaan adigu maxaa soo jeedinaysaa marka laga hadlayo arrintan Israel aan la galnay edo scholarships way bixiyaan tababarana way bixiyaan isbitaalka weyna way caawiyaan iyagu qudhoodu waa dal aan la aqoonsanayn hadday iyaga oo aynkaasa inagana ay saaxiibtinimada inta inooga soo dhalatay wixii kale la negotiate gareeyana hadday ilin cid kama xigtaane idinkuba aad la negotiate garaysaan oo initiative la timaadaan oo iyaguna ay awoodii dhaqaale ay u yeeshaan wax wada qabsigaas wuu sii tarmi laakiinse wax aynu xaq ugu leenahay kamaynaan helin wixii aanu ka rabnay dee ilaahay unbaa dadka ummadda wax deeqsiin kara laakiin intii ay inoo garatay ayaanu ka helay waxay nagu waajibay inuu leedahay alxamdulilah hadday yar tahay iyo hadday badan tahayba ilin daynkumaan lahayna marka in laga samaysto laga negotiate gareeyo wax ka suuragalaa laga helo way fiican tahay let's do it intii halkan joogtay dalka joogtay intii ay ka negotiate gareen intaasay noqotay wax dheeraada idinku ka sameeya tan security ayaan tallaabaya waniga hadeer lahaa Turkey iyo Israel 6 billion trade baa ka dhexeeya yes Somalia saaxiib bay la tahay China yes Somalia saaxiib la tahay Turkey yes Somalia Egypt bay la tahay sababahay ula tahay ma la isweydiiyey xasan sheekh wani baa yahay mushtara jeebaduhu buuxsanaya 3 bilood baa u hadhay dib loo dooran maayo ummaddu ma jecla in badan buu dhacay wadankii ayuu ka burburiyey nabadgelyadii buu hagaajin waayey dalkii loo doortay 5 sanadood horteed mid ka liita ayuu maanta kaga tegaya marka inaanu soo noqonay uu doonay marka inuu jeebadaha ka buuxsiyo doonaya marka macdanahan iyo waxa uu yiraahdo Turkiga ee baara saliidan baara dekadihii buu u dhiibay airportkii buu u dhiibay dee wuxuu ka helaa dilaalkiisu ka helaa dilaal shakhsi buu ka helaa dilaalkaas oo ka dhigay ninka tobanaad ee ugu taajirsan qaaradda Afrika ayuu ka dhigay marka waa qof xaaraantu u xalaal tahay weeyaan marka Turkey ninka caynka u naas muujinaya ee wax walba oo ogolaanaya u saxeexaya dee dabcan way u hiilinayaan laakiin at the end of the day $6 billion trade na China Israel way la leeyihiin taana way tixgelin doonaa Egyptna de waxay nagu dilaysaa jaar waxaynu lanahay Ethiopia daamka maxaan ku raayay Nile waterka ayay ku dagaalsan yihiin anaguna awlaadoodaas ayaynu dhexgeli weyn inaguna we didn't side with anybody basaasina waynu ku jirtaa ogaada waa maqna intaana hooyo bixin hooyo ma in yar ma siin karaysa hal mirir 1 minute go ahead 1 minute okay hal mirir isiya okay anu xagga carbahan jooga horta marka hore jacaylka lagu muujiyo ana ku muujinaya waxba soo gaabanay hadalka okay hooyo anu carabahan joognaa carabahana pressure ba naga saaran maadaama qoystiga xagga ka soo dhacay xagga pressure ba soo fuuray laba qaybood ka soo fuuray qaybtu waxa weeye dalalkan uga carbuhu de maaha xorriyad ma haystaan aad magaranaysaa yaraha haddi kartid kaas waa qodobka labaadna waxa qaybta kale ee diinta ayaa laynoo soo cugsanaya qadiintii siyaasadda halkaas la iska dhigay halka diinta la naga soo weeraray marka sidee baan uga hortegaynaa qodobyada diiniya u jawaabaya ka kalena waxa weeye halkaasaan kugu daraya kale waxa weeye annagu haddaan halkan joogno carabaha waxaan u baahan nahay taageero xagga dowladdeeda ah Somaliland si aan loobi halkan uga samaysano oo doodeeda markaa aan ku falaqaysano waan ka baxay way horta su'aal mar hore la weydiiyo laga jawaabo Turkish embassy-ga su'aasha hore iyo doonayda noqdo taasi waa arrin u taala dowladda waa arrin u taala arrimaha dibadda
waana hawshaas already waa kii madaxweynuhu yiri iyo khadar wasiirka madaxtooyadu lahaa waxaan u maraynaa sifo diblomaasiya baan u maraynaa markaa taas gacanta lagu haya tan carabtana waddanka aad joogtaan kolley waxay leeyihiin accord abraham accord bay ku jiraan hadday abraham accord iyaguba ku jiraan waxaan filayaa midlo xasan sidaan ka waa xasan qadar buu joogaa sanadka qadar way la leeyihiin oh my god waa ka ugu weyn waa kay la leeyihiin aad bay la leeyihiin marka abraham accord bay la leeyihiin trade accord bay la leeyihiin bayca mushtar baa ka dhaxeeya maxaa iyagana u xalaaleeyay anigana iga xirantay meeye aynu qabanayno oo dhan waa intaasoo laga sii kulleeyo waa intaasoo energy badan la sii geliyo waa intaasoo dhan walba laga tiiriyo oo aan lagu hadlayn ilaa 8 jira oo xiiqday oo daashay oo maxaan ku dhahaa aan lagu hadlayn aynu qof walba noqono edna aadan every single one of you waa edna aadan baa tahay you are a Somalilander mas'uul baa kaa saaran inaad difaacdo inaad u lobby garayso inaad u micnayso inaad raaji u qortaan inaad safaaradaha tagtaan wadamada aad joogtaan